isdiiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa isdiiwaan gelintu aqoonsiga dawladnimo dariiqyada loo maraa dalkiisa muwaadinka leh waxay damiinata xaqiisa dastuuriga marka annagana waxaa noo sumcad noqon doontaa sidaad soo shaqaysaan jaamacadda haddii aad wax wanaagsan soo qabataan idigoo shaqaalihii komishanka ah jaamacad ahaanna waxay noo tahay runtii qurux iyo wax lagu faano in ardayda camuudeed ay ka mid noqdaan kuwa ugu wanaagsan ee la shaqaynaya komishanka idinkana waxaan idinku dardaarmaynaa inaad samirkeyga yeelataan akhlaaq fiican la timaadaan sidaan horey idinku dardaarnay qofka waxaan ka rabnaa mas-uuliyadda inay ku muuqato markuu meesha fadhiisto laba qodob baan ku sheegaya number 1 akhlaaqda jaamacadda sharafta jaamacadda huwatiin sharafteena ilaaliya ama wiil haw ama gabadh haw meel alla meesha tagtaba maxay inaga mamnuuca inaad cabtooto ama stress ku fuushaday arigaaba loo geeyo ama bixin duula loo geeyo adigii weeyaan ha cabsoonin cabsi bay nagu jirtaa askar baa ku ilaalinaysa waxaad ilaahay baad cuskatay ilaahay baa ku ilaalinaya askar baa ku ag joogtaa maxay naga mamnuuca inaad gargariirto magaca ha tidhaahdo taasuba si yaro wanaagsan oo degan ha maxaa kale inaga mamnuuca waxay naga mamnuuca kibirka saan annagu qalbigayna ugu qaadno dadka qalbiga ugu qaada cadceed bay joogaan u fududeeya dhag qalinka sii daaya muxuu ahaa computerku ku shuba haddaad aragto adoo gaabinaya saaxiibadaadhe ila wada IT baa tihiin adigu iyana sidhe haddaba saasaan isku ognahay waxaan filayaa ereygan haddii jeer ku celnaa waxay jaamacadda camuud iyo komishanka doorashooyinku waa hay-adaha isugu dhow marka xaqiiq laga hadlaya dalka inta aanu ka wada shaqeynna jaamacadda sharaf baanu ayay ardaydeedu leedahay waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan isoo jaamacadaha waa taqaanaana waxa loo sameeyaa kala sarreyn ranking waxa la yiraahdo rankingka jaamacaddani waxay kaga jirtaa xagga ugu sarreysa soo maaha taas sumcaddeedii inaad ilaalisaan baa lidinka baahay sumcaddeeduna waa laba wuxuu muhiima mid waxa weeye akhlaaqiyaadka midda labaadna waxa weeye aqoonteedii iyo kartideedii inaad yeelato karti waxa looga jeedaa marka dadka uu adeegayso ee aad gobolkan ka adeegayso in aad yeelato dulqaadkeedii iyo maamulka ka muuqdo haddii maalinta lagu rarayo halkaas 5 saacadood 8 saacadood baa la joogaa maxay inta oo dhan halkan loo fadhiisiyay ay ka noqonayso hadhowna dee waa adagtay inaad dhowr iyo 10 saacadood aad dadka u adeegto waa adagtay haddii aad maanta ka soo habsaanto fariin kulankeenan hadhowna way kugu adkaanaysaa marka hawsha la qabanaydana wax laga yaabaa inaad ka soo habsaanto marka horta habsaanka iyo dulqaadka iyo adkaysiga intaas waa muhiim waxa kale isaguna inoo muhiim inaydan waxba dhayalsan marka ama wax la qorayo ama aad dadka processka marinayso ha dhayalsan wixii sharciga kullee tababar baa galaysaan laga bilaabo bari soo maaha labada cisho waa idin muhiim tababarka wixii ku saabsan oo dhan waxa loo baahan yahay aad u dhugataan aadna u fahamtaan marka tagto camuud culus iyo meelo adag way adag tahay in hadhow cid ku akhridaa inay jirto xataa warqadda ka maqan baa laga yaabaa dadka kugu hareeraysanay ee dadka magaalada jooga inaan meel aad ka daabacato aanad helin marka agabka aad ku shaqaynayso ilaalinteeda adiguna aqoonta imaka inaad u sii dhug yeelato oo aad u sii fahanto hadhow way kugu adkaanaysaa mid kale faa'iido badan bay idin leedahay maadaama ardayda ugu badan ay yihiin IT caalamka waxa la sameeyaa qofku markuu IT-ga baranayo waxa la geeyaa hay'ado kale oo ku takhasusay IT-ga oo bilaash muddo ugu soo shaqeeyo oo loogu talagalay wixii theory-ga uu bartay in practically sida ay nolosha marka ay tahay sidoo uga shaqeynayana ay eegto qalabkana ku shaqeyn doontaa intaan ogahay ilaa 6 software baa ku jira oo kala wada duwan laga yaabo qoladiina IT-ga ina macno badan ay idin samayso ama ka xogta dadka lagu kaydinayo ha noqoto ama ka printerka ha noqoto ka software-ka indhaha lagu qaadayo ha noqoto ta serverka ku xidhan ha noqoto wax duplication la yiraahdo ama qof u eekoonaaday inay qabato ha noqoto software badan baa idin ku jira oo qaarkood very advanced yihiin waxaan biometric la yiraahdo ama iris ee isha buudeeda
dadka comparison-ka ku samaynaya waa laga yaabaa aqoontiinu hadhow inay idiiba hogaabiso inaad qaybtaa ku takhasustaan oo imaka caalamka meelo badan runtii baahi weyn loo qabo ama immigration ha noqdo ama airport ha noqdo ama ID card ha noqdo markaad ka baxdo tababarkaas eed qaadato sanduuqa yar madow halkaa yaala eed ku shaqayn doontaan waxa ka baxaysaan ardaynimo waxaanad isu bedelaysaa hawlwadeen macnaa adaa hawshii la wareegay waad ka baxday ardaynimadii ardayga waa spoon feeding macallinku subject ku dhigo iyo maadadu ku dhigo imtixaan ku dhigo ku qaada laakiin tani waxay ku baraysaa inaad adigu mas'uuliyadii aad qaado inta marka laga tago dadkeenu u tagaynaa waa dad inaga duruuf duwan meelaha qaarkood hadduu magaalo yahay culays badan baa ku saarmaya hadduu miyi yahay waxaa laga yaabaa dad reer miyiya oo duruuftooda iska adagtay inaad u tagto qaarkood aanay qadayn qaarkood aanay quraacan qaarkood aanay cashayn qaar baa jira markaad kamarada indhaha loo saarayo xataa ku xantooda weligood indhahooda aanay kabardi gaadhno markaba kaa boodaya sideed ula macaamilaysaa dadka caynkaasi aad la dhaqmaysaanna waa inaad ilaalisaan waxaa kaloo shaqada idinla qabanaya dad gobollo kale ka yimi sool buu ka imanayaa sanaag buu ka imanayaa saaxil buu ka imanayaa togdheer buu ka imanayaa maroodijeex iyo hargeysuu ka jaamacaadkeedii oo dhan baa yaa laga yaabaa macnaa dadkaana waxaad u tihiin gobolka laga hawlgelayaana waa maxay waa gobolkiinnii soo awdal soo maaha kaa laftigeedana waxaad u tahay inaad qofkaana aad si la difan aad ula hadasho marka dadkaa laftigeedana sida dadbarasha idiin tahay oo dalbarasha idiin tahay oo shaqo barasha idiin tahay intaasba way idiin noqonaysaa marka waxaan filayaa wejiyadiina iyo intii aanu soo aragnay inay aad runtii u fiicnaayeen idinkuna waxaan filayaa inaad insha allah kii la mida noqon doontaan waata broseska laydii sheegay tababar baa geli doontaan dhaar baa ku xigi doontaan hawshana waad geli doontaan soo intaasba maaha annaguna waan idinku kalsoonahay idinkuna nagu kalsoonaanaysaan laba ID oo keliyana waa leedin arday jaamacadda Camuuda iyo arday hawlwadeen komishanka doorashooyinka wax alla waxaaga sirtaada kale quracaaga iyo qasaxaaga cidna haw sheegi kulankeena ujeedadiisuna waxay ahayd guud ahaan inaynu sii aragno wixii talooyin ee xagga maamulka jaamacadda ah oo diiriye cabdinaasir nagala joogaan iyo wixii kale talooyin ee xagga commission aad ka qaadanaysaan inaad imika aad sii maqashaan commissioner cabdifataax baa iyo diiriye idin dhameeyey wixii talooyina anu laba qodob baan odhan lahaa midna waxa weeye waa mas-uuliyad ku saarmaysa markaad hawshan gashid mas-uuliyad baa ku saarmaysa waa mas-uuliyaddaasi maaha mas-uuliyad shaksi iyo mid qoys iyo mid magaalo toona maaha waa mas-uuliyad qaran weeyaan mas-uuliyadda qaran markaa waxaa laga rabaa aduguna si adigoo qof qaranka matalaya inaad ugu shaqaysid ood uga soo baxdid qaabkayna waan wax ku dooranay maaha qaab gaara maaha intiina halkaa fadhida cid ay commissionka yaqaanaan miyay jirtaa ma jirto jaamacadaha qaranka ee dawliga ah oo Camuud ka mid tahay baa nooga xil saaran in ardaydan u baahannahay noo soo xulaan qaabkaasaynu ku shaqeynaa qaabkaasi maadaama uu dawli yahay idinka qaabka laydin qaatay markaa waa wax ku salaysan dawli weeyaan marka waxaan rabnaa inaad hawshaa mas-uuliyadda aad u diyaar garowdaan qodobkaasi waa ka inay mas-uuliyaddan culus waxaad ku garanaysaa weli qof imika ka hor dhaartay miyuu jiraa kitaab gacanta loo saaray miyuu jiraa gacanta qof hadduu jiro 1 2 3 qof waay waad dareemi kartaan markaa 100 dheeraad baad ku fadhidaan 3 qof haddii hore ay u dhaarteen intiina kale oo dhani dhaartu ma aha wax yar dhaarta waxaa ka ratibmaya waxyaalo fara badan dadku hada jeer kitaabku ma gacanta saaraan hadhow markay shaqada galaan waxay iska iloobaan ujeeddadii ay u dhaarteen markaa mar haddii kitaab gacanta lagu saaray culays baa lagu saaray mas-uuliyaddii qarannimo marka laga tago mas-uuliyad ilaahay aa ku saaran lafteedu taa lafteeda marka waad ka soo baxay annagana mas-uul baad noo tahay oo dee goobta dhowrka 100 ee qof ay safka ugu jiraan cidda u shaqaynaysaa waaye safka lagu jiraa waa adiga weeyaan dadka safka kugu jira si Cabditax sheegay xaalado kala duwan bay ka yimaadeen qof baa xanuunsanaya qof baa gaajoonaya iyaga laftoodu waxay gudanayaan waajib qaran oo ah qof walba inuu codeeyo oo xaqii u lahaa dastuuriga ahaa inuu codeeyo oo ciddu maamulaysa uu doorto ayuu safka ugu jiraa
dhammaan dhammaan diiwaangeli baa jirte gobaha u daareera oo danaha qarankiyo bulshada